halkan oo madaarka diyaaradaha Burco oo madaar ay si maalinle u isticmaalaan shirkadaha diyaaradaha kuwaas oo ka soo dejiya diyaarado kala duwan oo ka kala yimid dalal kala gedisan isla markaasna madaarka diyaaradaha Burco uu yahay mid muddooyinka u dambeeyayba laga hirgeliyay dhismayaal kala duwan waxa maanta madaarkaasi booqday gudoomiyaha gobolka Togdheer taliyaha ciidanka booliska gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiin kala duwan waxaana mas'uuliyiintaasi u kurgaleen shaqada baaxadda leh ka socota madaarka diyaaradaha Burco ugu horeynba waxa halkaasi ka hadlay maamulaha madaarka diyaaradaha Burco Cabdirasaaq Nuur Caraale wuxuuna maamuluhu sheegay inuu madaarkani uu yahay mid furan oo si toos ah u isticmaali karaan guud ahaanba diyaaradaha noocyadooda kala duwan halkan aynu joognaa waxa weeye airportka Burco anu waxaan ahay maamulihii madaarka Burco halka waxaan ka salaamayaa dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta joogan madaarkii Burco uu shaqeynaya annagoo hawlahaygii shaqo ku jira ay maanta saxaafadina soo booqatay waxa laale wax ka jiraan ma jiraan waxa la sheegayo airportka sidiisa uu shaqeynaya 24 saacna waa lagu soo talagelayaa diyaarad kasta nooc kasta ay tahay airportku furan yahay uu shaqeynaya waana iman kartaa iminka iyo biriba way iman kartaa marka airport xidhan iyo airport cid rabastay toona ma jiraan waxaas ay wax la isku geegeeyay bay ahayd waxaanu halkan u sheegaynaa diyaaradaha waliba sida diyaaradaha Kenya ka yimaada inay sidoodii tahay airportku sidoo isticmaali jiraan oo isticmaalayaan cidna halkan xukuumadda ayaa ku haysa gacanta amnigeeda cid kale oo looga baqaya ilaahay mooyo cid kale ma jirto sidaana waa la socodsiinayna si ay ogaadaan haddeer waxaanu taaganahay waxa weeyaan airportkii Burco ayaan taaganahay shalay khalad baa halka ka dhacay khaladka halka ka dhacay waa wax la isku geegeeyay wax airportka ka dhacay maaha nimanka sheeganaya khaladkaas la sameeyay maaha niman mas'uulka ah airportka shaqana ku leh waa dambiilayaashana qaranka ayaa talaabo ka qaadi doona insha Allah billahi kariim waxaan u bushaareynaa ganacsatada shirkadaha diyaaradaha ee ku lug leh danaynaya airport Burco 24 saacadood airportku inuu furan yahay xor yahay mas'uuliyadiisa iyo amnigiisana qaranku uu ka mas'uul yahay khaladka dhacay daawteen waa khaladtuga ka raalihaada waa ka xunahay ishinu inay aragto taliyaha ciidanka booliska gobolka Togdheer gaashaanle sare Cali Maxamed Faarax ayaa dhankiisa tilmaamay inaanay jirin cid looga baqayo amniga madaarka diyaaradaha Burco waxaanu taliyuhu tilmaamay in sharciga la horgeyn doono cid kasto isku dayda inay khalkhaliso amniga madaarka diyaaradaha Burco waxaanu joognaa iminka waa airportkii Burco waxaad aragteena waa photoshop iyo wax la soo geegeeyay arrinka markaanu maqlaynay ciidanka booliisku xalay magaalada Burco wuxuu hayday airportka waanu ku sugay afartiisa jihaba ciidan baa taagan hadeer wax laga boqo amniga looga baqaana ma jirto oo laga cabsi qabaana ma jirto cid photoshopka iyo facebooka wax gelisana talaabo sharci aanu ka qaadaynaa waanu raadkiisna waan ku taaganahay maxkamad baan soo taagi doonaa haddii la ka dhigo cid kasto isku dayda amaankana darajo kastuu leeyahay ciidanka booliisku talaabo ka qaadi doonaan waxaan u baaqayaa inuu airportku amaan yahay goor iyo ayaan inuu amaan yahay 24 saac waa la soo degi karaa ka aaminsan inuu intuu hadlay dabanda booliisku ay uga iyo sharciga muxuu ahaa ay gacanta ku qaateen suurta gali mayse talaabo sharciga waafaqsan baynu ka qaadaynaa waa booliisku ka qaadi doonaa maxkamad baa la saari doonaa marka ammaanka annaga gacanta ku hayna mana jirto cid khalkhal gelin doonta hadii alla yiraahdo cid kasta way iman kartaa habeen iyo maalin waa laga duuli karaa ilaahay idamkiina wax weeye kuwaana wax weeye talaabo raadkoodii baan ku taagana hadeer gacantaan ku soo dhigi doonaa hadii la ka dhigo marnaba ka daalimayna ammaankiina nabadgelyada saan awalba ugu xil saarnayn ciidanka booliiskuna waxa uu diyaar u yahay cid kasto khalkhal gelinaysa ammaanka iyo deganaanshaha talaabo sharciga waafaqsan bay ka qaadi doonaan dhankiisana gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inaanay jirin cid is hortaagi karta ama joojin karta diyaarad kasto isku dayda inay timaado madaarka diyaaradaha Burco marka hore ilaahay ma hadle marlabaadka waxaan u mahad celinayaa ciidanka booliiska gobolka Togdheer ee taliya Cali hogaaminayo maamulaha madaarka sidwaha wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo cid kasto reer Soomaaliland oo ka dhidhiday arrinkii photoshopka ahaa ee la isu geegeeyay runtii sumcadda Soomaaliland iyo sumcadda Burco iyo sumcadda gobolka Togdheer iyo sumcadda airportka intaba wax u dhimayay waxaan u sheegaynaa dadka samaha jecel
iyo dadka jamhuuriyadda Somaliland arrinkii shalay dhacay inuuna ahayn arrin xaqiiqo ah oo runtii maxay ahayd dadku ay rumaystaan airportku waa ammaan diyaaraddu waana imanaysaa waana iman doontaa horena way iman jirtay iminkana way imanaysaa cid is hortaagi kartaa iyo cid u hanjabi kartaana ma jirto nidaam baynu leenahay dawlad baynu nahay haddii dawladda la isku ixtiraami waayo nidaamka la isku ixtiraami waayo waxyaalo badan baanu maxay ahayd runtii aanu u dulqaadanay waxyaalo badan baanu ixtiraamnay laakiin waxaan u sheegaynaa haddii la isku ixtiraami waayo dawladnimada haddii la isku ixtiraami waayo nidaamka ciidanka bilayskuna waxay amar ku qabaan ilaa xalayna ay ku jireen oo habeen walba iyo maalin walba ay u soo jeedaan inay amniga gobolka sugaan in kuwa cid kasta oo fal dambiyeed ka samaysa gobolkan ama kuwa photoshopka samaystay hadlay ha noqdaan inay tallaabo ka qaadaan cid kastana way u furan tahay garoonka airportka burco uu furan yahay diyaaradduna way imanaysaa berri bay imanaysaa maanta imanaysaa إن شاء الله تعالى ساسين سوقنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu dambeyntii ciidanka booliska gobolka Togdheer oo horkacayo taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer gaashaan la sare Cali Maxamed Faarax ayaa ku soo wareegay dhamaanba qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay madaarka diyaaradaha ee magaalada Burco.